boqolaal qoys oo danyar ah isla markaasina ku nool magaalo xebeedka Kudha ayaa waxaa maanta loo qaybiyay deeq raashin ah taasi oo ay ugu talagashay dowladda Jubbaland oo uu horeeyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam. Maamulka deegaanka Kudha iyo laamaha amniga oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay in si amni iyo nabadgelyo leh loogu qaybiyo dadka deegaanka deeqdan raashinka ah ee uga timid dowladda Jubbaland. waxayna qaarkood dadkaasi oo la hadlay telefishinka Jubbaland ka mahad celiyeen deeqda raashinka ah ee maanta loo qaybiyay. deeqda ay noo keeneen aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa maasha Allah. waxaan kale tan ku codsanaynaa in waxbarashada aad ay noogu kordhiyaan codsiyaad badan ayaan xalin jira aad uga codsanaynaa sida biyaha kale waxbarashada caafimaadka aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa tan iyo tan mid lamid ahna waan rajaynaynaa inay noo keeni doonaan. Jubbaland waan u mahad celinaynaa sida hufan raashinka noogu keentay ilaah baa mahad iskale ayagaan ugu mahad celinaynaa. waxaan ka codsanaynaa saan iyo si ka fiican in wadamada hadda xeebaha markii la yiraahdo anaga reer xeebeed baan nahay waqtigii hore hadda ay baahida ka badan tahay oo roobkii xoogaa iska yaraaday meesha howlgalka inta hadda oo laga shaqeeyo xeebaha kalluumaysiga iyo beeraha ayaa midigtooda u badan beerihii xoogaa dabeelihii yaa ku dhacay waa way jirideen galey fiican ma jirto iyo simaar fiican ma jirto badii waqtigan ku siyaa la yiraahdaa sida hadda bad xir amal dadka sida u garanaayo badii way xiran tahay waqtiyaha bad xirka lagu jiraa in raashinka iyo dawada caafimaadka iskuulaadka waxbarashada ay naga caawiso dawladda Jubbaland ayaan ka codsanaynaa. waxaan doonaynaa waxaan fariiro raashinka waan aragnaa hadda gacantaaba ku haynaaba ilaahay baa deeq bixiye wax badan oo inta ka badan oo ka macno badan baan rabnaa inta waxaa dhil sida ninkii iga horeeyay u sheegay mashaariic badan baa jira oo waxtar ay wax ku ool anaga loo wax badan oo wax qabad ahaan u baahannahay oo dhinac kasta ay ahaataba warar la qodaan u baahannahay ceelal baan u baahannahay mashruuc baan u baahannahay warshadaan u baahannahay wax yar uma baahnin badda kalluumaysigeeda baan u baahannahay in la ka qabtiro oo gaadiid aan u baahannahay beeraha in la ka maqtaan ka caawiyaan u baahannahay marka xoolaha naftooda waxay rabaan talaal iyo howlo iska rabaan daawo u baahan yihiin in la ka caawiyaan u baahannahay. Umar Xaaji Barre gudoomiyaha guud ee magaalo xeebeedka Kudha oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa dowladda Jubbaland oo uu horeeyo madaxweynaha ugu baaqay in dadka deegaankani baahiyahooda kaliya aysan ku filneen raashinka maanta loo qaybiyay isla markaasina ay muhiim tahay in la soo gaarsiiyo in ka badan inta maanta loo qaybiyay. waa u jeedaan raashinka halkaan ku qayban hayna wuxuu naga soo gaaray dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam markii horeysa madaxweynaha waan salaamiyaa 114 waxaan rabnaa waqtigii raashinkaas ugu habboonaa noola keenay dabeele idoo kaceen beeray wali ay soo bixin kala dhacdan u jira aad buu u mahadsan yahay waxaan ka codsanaynaa inuu noo keeno raashin intaan ka badan dadka qaar hadda raashinka ma gaaran waqti xunna waa lagu jiraa dawladda aad baan u mahad celinayaa waxaan rabnaa inaan noola soo kordhiyo raashin tayo leh qamad un baa hadda noola keenay iyo raashin kale oo kartoomo isku jirjir ayaa noola keenay marka waxaan rabnaa intaan in ka badan dawladda ayadoo mahadsan inay noo keento aad baan u mahadsantiin. Nuur Muxiidiin Cali raadiyaha iyo telefishinka Jubbaland deegaanka Kudha.